دعوة برنامج تقوبنا وتلالي وده بدأ ندخوه إنه واحد كمذا برنامج عافي ما دوك السعودية هو يو مسلمين تا دنمارك شلي يمانتا بس يكون رأينا مقالة هرقيسة والدين يمعلمين جوجا مقالة هرقيسة يا وحي كديريان حالة شنموين كمقالة كوا سواء كنت المعمين إني صوبا نقال أفلام ديفي قلين كرا فربشدو أما أنشحوه iyadoo dadka u soo daawasho taga aflaantaas aan wax shuruud ah lagu xirin marka loo fiiriyo da'dooda magaalada Hargeysa waxa ku yaala in ka badan 100 sinimo oo noocaas ah Ahmed Saciid Cige oo ah suxufi jooga magaalada Hargeysa ayaa telefoonka ku wareystay oo iga warramay xaaladda sinimooyinkaas Yusuf walaacaasi iyo dhibaatooyinka faraha badan ee aflaamtaasi ha ahaadeen kuwa dijiska laga daawado ama sunta satellite-ka ama se ha ahaadeen kuwa videoga la geliye waalidiinta aad bay iyo macallimiintu iyo dadweyne fara badan aad bay arrintaasi walaac uga muujiyeen dhibaatooyinkaas oo ay ka mid yihiin waxaa ka mid ah ugu horeynta iyadoo aflaamtaas aan loo aabayeeline masalan ay muujinayaan qaawanaan oo kale oo filmo badan oo anshaxa iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinkeena islaamka ama ay aad uga qoriwanayaan dadweynuhu halkaasi ay leeyihiin waa dhibaatooyin fara badan oo qofkii yaraa markaasi ku dayan karo waxaa kaloo ka mid ah iyaga oo dhinaca dagaalo fara badan ama filmo cowboy ama filmo dagaalo ka tarjumaya dabeedna ay carruurta ku daydaan oo hadhow tidijintii ay yimaadaan sida magaalada Hargeysa oo kale ay xoogayaal fara badan ay ka dilaaceen oo dhowr jeer ay booliisku ay wax ka qabteen oo ay xirxireen taasi waxaa kale oo ka mid ah iyadana in carruurta halkii lagaga ogaa ilaa iyo masalan sheekir ilaa iyo abaatashir halkii ama malcaamadda ama dugsiga ama se xaqaaradda lagaga ogaa ina uu gooyaba oo tago halkii videogii uu tago oo taasina ay tahay dhibaato kale oo ay dadweynuhu ama se waalidiintu ay walaac weyn ay ka muujiyeen أحمد فيلمadaas aan ka dhex galay أحمد فيلmada wax la daawanaya maalinimada miya waxa la daawadaa maalintii waa la daawanaya halkii barigii hore aynu shareemooyinka aynu ka naqaanay habeenkii oo kaliya dibanka subaxii baa la bilaabayaa ilaa iyo habeenkii saqda dhexe ilaa iyo qaarna uu halgaaba loogu bariyaa oo qaar fara badan oo ku yaala magaalada Hargeysa ama magaalooyin kaleba marka aflaamtan la gelayo dadka gelaya da iyo looga kala soocamaya filmku waxa ku saabsan kuma xirna da loo kala sooca haba yaraatee ma jirto inkastoo waxa ugu badan dhalinyarada jir ilaa 18 jir ilaa 20 jir laakiin dadweynuhu badanaa filimada caadiga ee ama wararka satellite-ka soo gudbinayaan habeenka iyo badanaa habeenkii kala laakiin da loo kala sooca haba yaraatee ma jirto مسؤولينta magaalada Hargeysa miyaysan wax ka qaban dadkan daada yar ee ilaa 5 jir ayaad ka hadashay laga yaabo inay daawadaan film ama maaragtay xaqi violence iyo dagaalka dadka tusaya ama maaragtay waxyaabo kale oo dhaqankii ku xunxun oo shacabdarrada tusaya mas'uuliyiintu miyaysan wax ka qaban مسؤولينtu sida aan ka warqabo dhowr jeer ayaa wasaaradda awqaafta iyo diinta ee dalka Soomaaliland iyo xeeraalintuba ay qoraallo ay ka soo saareen oo jaraa'idka ay ku qoreen laakiin taasi dad badan waxa ay u arkaan inaanay xal ahayn laakiin loo baahan yahay in sidii loogu baraarujin lahaa ee dadweynaha gaar ahaan waalidiinta iyo dadka kaleba gaar ahaan dadka xarumaha shariimooyinka leh loo tusi lahaa in ay ka reebaan iyo janadada masalan soo gudbinaya arrimahaasi filimadaha anshaxumada iyo dhaqanka aan suuqanayn leh iyo filimada kale violence-ga ah sidii looga reebi lahaa oo iyagu ay xil iskaga saari lahaayeen risaaladaasi waxa ay la taallaa oo ay waajibku u saaran yihiin qolooyinka xarumaha shariimooyinka lagu dhigo leh yaa leh shariimooyinka shariimooyinka Yusuf waxaa leh dad gaara baa leh oo private marka waa dad ragga ganacsatada waaweyn ee magaalada ugu sarreeya mise waa wax sahlan oo dhalinyaro xogaa lacag haysta ay furan karaan waxaa furan kara qof kasta uu furan kara qofkii yaro farqabsiya leh haysta because waxa weeye waxa ay kiraysanayaan uun qol ama se meelo sadaqada ayaabay u badan yihiin oo xaafadaha magaalada Hargeysa oo kale masalan iyo Berbera waxaad ku arkaysaa sadaqado fara badan oo inta shaashadii la dhigo dadka talaajin xagga sare laga taagayo marka wax weyn oo saar lacag fara badan u baahan ma jirto hadda yeeshee way jiraan magaalada Hargeysa in qaar waaweyn shirmooyin waaweyn oo iyagu ku yaala masaajidada iyo ma looga hadlayo shacabku ma hadal haya arrintan lagama hadal laakiin shacbigu muqaayil kasta way ku hadal hayaan meel walba dadweynuhu way ku hadal hayaan jaraa'id bay baad
kuwa madaxa bannaan iyo tirada dowladda leedahay maadeed badayb ay ka qaateen oo dhowr jeer ma ku arkay maqaalado lagaga soo qoray oo ay nimanka qorayaashii ay ku baraarujinayaan dadweynuhu dhibaatada arrintaasi ay leedahay iyo waxa ay u keeni karto ubadka soo koraya. waxaan ku leeyahay axmed lacagta lagu galaa waa meeqa sinimooyinkaas? يوسف waxaa lagu galaa sinimadii halkii shoobuk مثلا ama yani halkii film oo kaliya ama halkii program waxaa lagu galaa oo مثلا soconaya ma saacad ama laba saacadood waxaa lagu daawadaa 1000 shilin Somaliland. kaasi waxa uu ahaa wariye axmed saciid cige oo igu waramaya khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa. waxayna ahayd 19 bishii January ee 1999 markaasi oo ahaa codkii ugu horeeyay ee markii aan ku biiray laanta Afrika Soomaaliga idaacadda BBC-da ina wariye uga noqdo Hargeysa. qiimaynta waxyeelada abaaraha ee dalka la magac baxay Jamhuuriyadda Somaliland dhibaatada ugu weyn ee haatan taagan waxa weeye biyo la'aan ka jirta meelo ka mid ah dhulkaas iyo soodinta uu dalkaasi leeyahay Ethiopia. waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray Axmed Saciid Cige warakan. abaarta oo ku baahsan hadda gobolada waqooyi galbeed Awdal, Sanaag, Togdheer, Sool iyo Saaxil sida wararka aan ku helay waxa ugu sii dareen hawdka xeebaha galbeedka iyo oogada intaba. khadka isgaarsiinta fooyaha oo aan kula xiriiray Balidiig oo ka mid ah jiidaha bariga ee hawdka gobolka Togdheer ee Burco waxa ay wararku ii sheegeen in 148 barkadood ku yaala magaaladaasi ay haatan 10 barkadood oo kaliya ay ku siyaarsan yihiin kuwa marinaha ay badidoodu ay jajaban yihiin. ay jiida oo degan halkaasi ayaa ii sheegay in ay xaaladda jiidaasi meel halista ay marayso oo ceelashii qoriluguud ay maran yihiin boqoshina ay la mid tahay. coodan xaaladhanka iyo buuhoodle ayaa iyaguna biyala haatana geelasha iyo xoolaha socon karaaba waxaa loo biyageeyaa oo ay u doontaan ceelka caanka ah ee Caynabo. wariyaha oo iyadana aan kula xiriiray tuulada Xaaji Saalax oo ku taala jiida galbeedka ee hawdka gobolka Togdheer ayaa ay wararku ii sheegeen in ceelashii ceeg ee biyaha badnaa ay maran yihiin ceelasha harada gubata xilna ay biyo yari ay ku sii hadsan yihiin haatana iyo daamis ku socdo jiidaasi iyada oo qiimaha foostada biyaha ay gaarayso marka laga keeno Burco oo ugu dhow ilaa 25,000 oo shilinka Soomaaliga ah meelaha qaarkoodna sida dhulku ay u kala durugsan yihiin ay gaadho foostadu 35,000 oo shilinka Soomaaliga ah taasi oo culays weyn ku haysa dadweynaha reer miyiga ah marka laga eego xayiraadii xoolaha Soomaalida ee Sacuudigu uu joojiyay. dadka aan la xiriiray waxa ay kale oo ay sheegeen in baligii weynaa ee Turuqsi oo jiidaasi isaguna ku yaala uu kulmay wali ka cabi jireen haatan ay u hayaameen dhinaca kililka shanaad ee Ethiopia. waxaana biyo la'aan ay ka jirta oo kale jiida dhexe ee hawdka Togdheer sida Waraabeeye, Bisiqa, Bilcilweyso iyo Sayre. gudida qiimaynta abaaraha ayaa waxay ku taliyeen in si degdeg ah biyo dhaamis looga bilaabo gobolada oo dhan siiba dhulka hawdka iyo in hagaajiyo ceelasha oo la dayactiro iyo in cunto degdeg ah oo samafal ahaan la geeyo goobaha wararka cunto ay ka jiraan siiba xeebaha galbeedka ee dalka. guddiga qiimaynta abaaraha oo ka kooban xukuumadda iyo hay'adaha samafalka waxa ay kaloo ay ku taliyeen qorshe oo ah in la sameeyo hay'ad joogto ah oo ka kooban qaramada midoobay NGO-yada iyo xukuumadda oo saldhigeedu uu yahay Hargeysa qaabilsanaana doonta u diyaargarowga iyo ka hortagga abaaraha soo noqnoqonaya iyo burburka dabiiciga ah. si kastaba xaaladdu ha ahaatee waxa ay dad badan ay la tahay in la isku tashado oo aan hay'ado shisheeye waxba laga sugin oo guddiga la jirto isla mar ahaantaasina waxay dad kale ay la tahay in maalqabeennada ganacsatada iyo ururada samafalka wadaniga hibaha ay gurmadka ay ka qayb qaataan. Axmed Saciid Cige, Hargeysa. waxay u soo socdaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. warbixintaasi abaaruhuna waxa ay ahayd warbixintii labaad ee bishii January 1999 markii aan ku biiray idaacadda BBC-da wariyaheeda uga soo warama Somaliland aan markaasi aan u diray oo abaarahaasi ku saabsanayd bishii January 1999 yaala kahayn oo bishii hore loo xilsaaray qabanqaabada habka xisbiyada badan oo la doonayo in laga hirgeliyo dalka ayaa sheegay in isaga iyo dadka la shaqeynaya ay haatan gacanta ku hayaan sharciga oo loo samaynayo habka xisbiyada badan. aanu sheegay in hawshaas ay tahay mid aan sahlanayn. arrintaasna waxaa nooga soo warramay Axmed Saciid Cige oo Hargeysa jooga. Riyaale oo
shalayto waraysi qaata siiyey wargeeska jamhuuriya ee ka soo baxa hargeysa ayaa sheegay in hawshaasi loo xilsaaray ay tahay hawl mustaqbal oo u baahan dadaal iyo kafaaraantig looga baahan yahay in la helo macluumaad badan ayna ururiyeen ilaa iyo hadda dukumenti door ah oo la xidhiidha nidaamka xisbiyada badan lana soo gabagabayn doono bisha February ee sanadkan mudane riyaale oo ka jawaabayay taliya had iyo jeer loo soo jeediyay guddigiisa oo ah in xukuumaddu hawshan iyadu keligeed ay isku koobtay oo aanay ka qayb gelin qaybaha kale ee bulshada waxa uu sheegay in dastuurku xukuumadda awood u siiyey diyaarinta xeerka dhismaha xisbiyada badan dadkuna ay wax dhaliili karaan hase yeeshee dadka la dhaliilaya annaga oo aan waxba soo saarin waxa aan u arkaa ayaa uu yidhi in ay ka horkaceen waxaana intaasi raaciyey in ay hawsha u diyaarin doonaan sida ugu dimuqraadisan mase daahiriyadakaahin oo la weydiiyey waxaa ka jira sida dad badani ay qabaan in ururka SNM laga reebayo bashaha xisbiyada badan waa uu diiday arrintaasi waxauna uu yidhi SNM waxa ay ka mid yihiin muwaadiniinta xaqbayna u leeyihiin ka qaybgalka habka xisbiyada badan mana jirto xisbiyeysa ina ay saruurtaan xisbi laakiin ina ay ummadda iska takooraan looma baahnaa waxa uu kaloo cadeeyey in tirada xisbiyada ay ku salaysnaan doonto sida dastuurku uu dhigayo oo ay ku koobnaan doonaan 3 xisbi oo isku xuquuq ah lamana kala fadili karo oo sharci isku mid ah ayaa loo samaynaya ayaa u yidhi madaxweyne maxamed ibraahim cigaal ayaa isaguna toddobaadkan markuu qaabilayay safiirka dalka Finland ee Nairobi oo hargeysa booqanayay u sheegay in Somaliland hadda ay ka guurayso nidaam beeleedka habka qabiilka ku dhisan oo ay guurayso nidaamka dimuqraadiyadda ku dhisan ee xisbiyada badan guddiga ka shako waxaa iyaguna jira guddi ka kooban 3 gabdhood ee xukuumadda guurtiga iyo wakiilada oo loo saaray wax ka beddelka dastuurka oo hawshooda ay socoto laakiin waxaa dhaliila arrintaasi mudanayaasha waxaana 24 mudane oo ka tirsan golaha wakiiladu dhawaan baaq ay soo saareen ay ku dhaliileen arrintaasi iyagoo sheegay inaanay haba yaraatee guddidaasi iyaga awood ka haysan dhinaca kalena idaacaddii radio hargeysa ayaa hawada ka maqnay 5 maalmood ee ugu dambeeyey iyada oo dadweynuhu ay aad isu weydiinayeen waxa ku dhacay idaacadda agaasimaha radio hargeysa Mr. Saciid Aadan Dige oo aan kula kulmay xarunta warlamiska oo farsamo yaqaanadu ay ku hawlanaayeen xilad bixin farsamo ayaa ii sheegay in idaacaddu ay aamustay sabtidii kadib markii mishiinka korontadu uu si lama filaana ugu damay dabadeetana warlamayaasha ay xumaadeen wasiirka warbaahinta Mr. Xasan Mawlid Axmed oo isaguna xadiiskiisa aan kula kulmay ayaa ii cadeeyey in radio hargeysa ugu fadhiyo xilad farsame ee aan sabab kale u fadhiin 2 toddobaad ka hor ayaa idaacaddu u fadhiday 3 cisho kadib markii 3 farsamo yaqaan ay qalab ay kala baxeen warlamayaha laftiisa iyagoo ku addacoonayay inay iyagu ay iska leeyihiin warlamayaha dad badan ayaa isweydiiya waxa ay xukuumaddu ugu guulaysan weyday in ay dalka ay ugu samayso idaacad weyn oo wada gaadha gobollada oo dhan axmed saciid dige hargeysa weli waxaynu ku jiraa wararkii ku saabsanaa jamhuuriyadda dhakhaatiirta magaalada hargeysa ayaa ka dayriyey xaaladda cudurka qaaxada cisbitaalka magaalada hargeysa ayaa toddobaadkii hore lagu daray qayb kale oo lagu daweeyey cudurkaasi qaaxada axmed siciid cige ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa cisbitaalkaasi oo aan booqday ayaan ku arkay dad fara badan oo u buka cudurkaasi oo subaxii saf ugu jira qaadashada dawada dr bashiir cabdi saleebaan oo ka mid ah 4 dhakhtar ee ka howlgala halkaasi ayaa ii sheegay in bukaanku uu ku khasban yahay in subax walba ay daawada ay ku qaataan shaqaalaha caafimaadka hortooda taasina ay u yeelaan ayaa uu yidhi maadaama ay daawadu ay bilaash tahay inaanu ruuxa jirani tagtaagin qaadashada dawada si xidhiidha isla markaasina aanu cudurka u fidin ruuxa marka laga helo jiradan waxa ay dhakhaatiirtu ay shardi ay kaga dhigaan ina uu ugu yaraan muddo 6 bilood ah uu ku sugnaado goobta caafimaadka isagoo keenaya qof samiinta oo haddii uu tagtaago qaadashada dawada amaba se la waayo laga qaado kharashka daawada khasaartay dr bashiir cabdi saleebaan waxa uu ii cadeeyey in laga soo bilaabo bishii Agost ee kala hore ilaa iyo bisha January ee 99 tirakoob ay sameeyeen ay ku ogaadeen in bishiiba ay cisbitaalka TPD Hargeysa ay la soo xidhiidhaan ilaa iyo 800 oo ruux waxaana uu dhakhtarku uu sheegay in dadkaasi 16% laga helay cudurka qaaxada iyada oo tirada guud ee dadka ay daaweeyeen 6 bilood ee ugu dambeysay ay tahay 347 ruux oo 90% ay u bukaan sanbabada 10% ka soo horayna ay yihiin caruur iyo dad liita oo cudurka TB uu kaga dhacay jirka intiisa kale sida qanjidhada lafaha iyo maqaarka
cusbitaalku waxa uu kaalmo sidaasi aan usii buurnayn uu ka helaa hay-ad samafala oo kuwayti ah oo lagu magacaabo guddida isku dhafka ee samafalka ee kuwait oo iyadu bixisa kharashka maamulka gunooyinka shaqaalaha raashinka bukaanjiifka iyo bukaan socodka iyo qalabka caafimaadka. dr cabdi ismaaciil oo isagu ah maamulaha cusbitaalkaasi ayaa waxa uu kaloo ii sheegay in hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay iyaduna bixiso daawada bukaanjiifka iyo bukaan socodkaba. haatanna wararka cusbitaalka ay ku jiraan guud ahaan 180 ruux oo isugu jira rag dumar iyo caruurba. waarkan lagu kordhiyeyna ay maamulka cusbitaalku dayactirkiisa ay iyagu kaliyahaan iska xilqaameen. inkasta oo badi dhismayaasha cusbitaalku ay duduusan yihiin oo dayactir ay u baahan yihiin, haddana waxa ay baahidu ay tahay sida aan ku arkay isaga oo aan lahayn shaybaadh iyo raajo casri ah iyo cusbitaalka oo aan lahayn ambulance amase gaadhiga dhooliga ah ee lagula cararo qofka bukaanka ah. dhakhaatiirta ku takhasusay cudurka qaaxada ee Hargeysa jooga waxa ay kaloo ii sheegeen in si loo yareeyo culayska saa'idka ah ee ka haysta dadka cudurkan qaba ee kaga imanaya gobolada kale ay haatan isu diyaarinayaan inay cusbitaalka TBD ee Hargeysa ay ku tababaraan shaqaalaha caafimaadka ee cudurkan iyada oo bisha Febraayo lixdeeda ay koox ka socota laascaanood ay u soo horeyn doonto tababarkaasi ay qaadan doonto kadibna ay ku xigi doonaan kooxo kale oo ka socda Burco iyo Ceerigaabo. Axmed Siciid Cige, Hargeysa. waa hagaag intaasna waxaa ku dhan warbixintii Axmed Siciid Cige uu nooga soo diray magaalada Hargeysa. khilaafsan oo ku saabsan abaarta iyo weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka xulashada Khamiista. siyaasiyiin jooga magaalada Hargeysa ayaa jawaabo kala duwan ka bixiyay waraysi uu madaxweynaha dalka la baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu siiyey wargeyska la yiraahdo Al-Hayaa oo afka Carabiga ku soo baxa oo lagu daabaco magaalada London. waraysigaas oo markii dambe ay sii daayeen idaacado kale iyo waliba wargeyska Jamhuuriya ee ka soo baxa magaalada Hargeysa. Axmed Siciid Cige oo jooga Hargeysa ayaa isu soo ururiyay fikradaha kala duwan ee laga qabo waraysigaas uu bixiyay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. waraysi uu la yeeshay wargeyska Carabiga ah ee Al-Hayaa ee ka soo baxa London 6 bishan Febraayo aynu ku jirno Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo warbaahinta caalamka qaarkeed iyo saxaafadda guduhuba ay soo bandhigeen ayaa keentay dareemo kala duwan oo siyaasadeed oo ay cabiraan kooxo iyo shakhsiyaad magacaliiba. qoraal dheer oo saxaafadda loogu talagalay oo guddiga ismagacawday ee la yiraahdo guddiga fulinta ku meel gaarka ee SNM ay soo saareen oo maanta lagu daabacay wargeyska Jamhuuriya ayaa waxa ay ku tilmaameen inaan Masar Cigaal meel cad aan iska taagin mowqifka qadiyadda gooniistaaga. waxayna ay yiraahdeen waxa noo muuqatay in Cigaal uu baalmarsan yahay himiladii Somaliland iyo go'aankeedii. qoraalkan oo uu saxeexay Sheikh Yuusuf Ali Sheikh Madar oo hadda ku magacaaban gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda iyo warfaafinta ee guddiga fulinta ee SNM waxa ay ku soo taxeen oraayo ay ku tilmaameen in ay ka soo xigteen Masar Cigaal waqtiyo kala duwan kuwaasi oo ay ku sheegeen in ay kulli yihiin waa sida ay qoreen go'aamada gooniistaaga. waxaana ku jiray qaar ay sheegeen in ay ka soo xigteen waraysigiisii Al-Hayaa ee ugu dambeeyay oo ay ka mid yihiin ereyadaasi waxa aanu u jeednaa midnimo ee ma aha qaybin iyo sheegashada Somaliland lafteeda ayaa qayb ka ah mashruuca iyaga midnimo. waxaana guddigani ay tala ay ku soo jeediyeen madaxweynaha ummaddu xaq in ay ugu leedahay in wixii ay go'aansatay ee ay u igmatay uu sideeda u fuliyo. waxaana guddidani oo madax u yahay Masar Xasan Ciise Jaamac oo mar ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenka SNM ay qoraalkooda ay ku sheegeen in Masar Cigaal oo u baxaya dalal ay ku jiraan kuwa si adag uga soo horjeeda gooniistaaga waa siday hadalka ay u qoreen. waxa aanu galayna ayaa ay yiraahdeen heegan difaac haddii aad nagula soo noqoto waxaanan ku igman. mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada oo toban ah ayaa iyaguna jawaabo gaar ah ku muujiyay dareen isku mid ah in ay qaadan kari waayeen nuxurka waraysiga madaxweynuhu xambaarsanaa. waxayna ay qaarkood ay ku tilmaameen sida ay qoreen khiyaamo. qaar kalena waxa ay soo jeediyeen in uu boorka dib uga jafaayo ra'iisul wasaarenimadiisii 1969 laga inqilaabay. hase yeeshee waxaa jira mudanayaal kale oo ka tirsan golaha wakiilada oo iyagu qaba in cid kasta oo fikradeeda ku cabiraysa warbaahinta ay tixgeliso oo tixgelintiisa sharciyada dalka iyo duruufaha taagan. mudane Ismaaciil Mire iyo mudane Yuusuf Nuur Maxamed ayaa waxa ay yiraahdeen qoraal maanta ay soo saareen madaxweynuhu uu madax bannaan yahay
tabihiisa iyo xeeladihiisa siyaasadeed ee uu ku fulinayo waajibaadka ummaddu u igmatay waxaanuna u aragnaa waraysigiisan tab uu inagaga duwaayo eedo aynaan lahayn isla mar ahaantaasina uu inagaga dulqaadayo culaysyo wejiyo badan leh oo ina saaran mudanayaal kale oo badan ayaa fikradda labadan mudane iyaguna qaba arrintan oo dadku aad ay u hadal hayaan maalmahan waxaa iyaguna qoraal ay soo saareen toddobaadkan ku muujiyey sida ay u diidan yihiin hadallada la sheegay in laga soo xigtay alxayaat ee cigaal sheegay masar cabdiraxmaan aw cali faarax oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo maxamed xaashi cilmi oo ka mid ahaa labadii murashax ee cigaal kula tartamay doorashada 1997 ilaa iyo hadda dhinaca xukuumadda wax jawaab ah lagama hayo oo rasmi ah oo la xidhiidha dareemadan cusub axmed siciid cige BBC hargeysa war ka soo baxay jamhuuriyadda la magac baxday Somaliland ayaa sheegay in ayaan raalli ka noqon doonin faragelin lagu sameeyo xuduudaheeda gaar ahaan gobolka Sool warkaasi oo soo saxay Maxamed Ibrahim Cigaal waxa oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda la magac baxday Somaliland ayaa arintaasi maamul goboleedka Puntland ku eedeeyay warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray Axmed Siciid Cige xukuumadda Somaliland ayaa shalay soo saartay baaq ay ku cadaysay inaanay marnaba raalli ka noqonaynin faragelin lagu sameeyo xuduudaheeda gaar ahaan gobolka Sool baaqaasi waxaa lagu qoray in bariyahan Somaliland faragelin iyo daandaasi ay ku hayaan gobollo koonfur ka tirsan lana baxay hadda magaca la yiraahdo Puntland iyadoo oo maamulkaasi halkaasi meesha ay ka samaysteen uu ku doodayo in qaybo ka mid ah gobolka Sool iyaga ay ka mid yihiin iyaga oo saldhig uga dhigaya sheegashadoodaasi isku bool ayaan nahay baaqaasina waxa uu kale oo cadeeyay in hadda la sheegayo in ciidamo ay ku tababarayaan Garowe una dirayaan gobolka Sool sida lagu qoray baaqir xukuumadda Somaliland waxa ay ku ogeysiisay dhammaanba cidda nabadda u danaynaysa iyo wanaaga inaanay raalli ka noqonaynin in ay faragelin ay ku samayso cid aan Somaliland ahayn xuduudaha dalkeeda baaqanina waxay xukuumaddu ay ku tiri hadii beesha Sool cid kamid ah oo ka timid Puntland ay yimaadaan gobolka Sool waxa aanu halkeeda aan u daynaynaa beesha Sool oo ila iyo saac ka mid ah Somaliland kana tirsan maamulkeeda in ay ka hortagaan cidda reer Sool ah ee dad ajnabi ah ay ku soo adeegsato sida baaqa lagu yiri baaqan waxa ay kaloo xukuumaddu ay ku qortay in ay qadarin gaar ah ay siinayso beesha Sool in khilaafaadka dhexdooda iyagu ay xal ay ka gaaraan oo aan lagu soo faragelin haddii ay dhacdo ayaa uu qoray baaqu in cid aan Somaliland u dhalan oo ciidan ah loo soo diro gobolka Sool Somaliland iyo ciidamadeeduba si cad oo dhab ah ayay uga hortagayaan dadka ajnabiga ee dalkooda soo farageliyay sida baaqu qoray xukuumadda Somaliland waxa ay sheegtay in ay kula talinayso Cabdilaahi Yuusuf iyo maamulkiisa in cidda ay waxisu yihiin ay isbahaystaan dabadeetna maamul ay samaystaan sida deegaanka magaalada gaalkacyo dadkii isdhalay ay wada degan yihiin haddana khad cagaarani uu dhaxeeyo kuwaasi oo dhaqan iyo deegaanba ay wadaagaan waxaanaanu u sheeganaa ayaa uu baaqu inaan qaran lagu dhisi karin qolo qoraalkan baaqan oo madaxweyne Cigaal saxeexay waxa goboldhig looga dhigay taariikhdii Somaliland min xilligii gumaysiga Ingiriiska ee 1884 ilaa iyo shirweynihii beelaha ee ugu dambeeyay ee 1997 Axmed Siciid Cige Hargeysa magaalada Hargeysa ayaa mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka la magac baxay Jamhuuriyadda Somaliland oo u dhashay gobolka Sool waxa ay ugu baaqeen maamulka la baxay Puntland ee Soomaaliya inuu joojiyo sheegashada uu sheeganayo gobolka Sool wariyahayaga Axmed Siciid Cige oo magaalada Hargeysa warka nooga soo diray waxa kale oo leeyahay waxa ismaandhaaf uu ka dhex dhacay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Axmed Maxamed Aadan Qaybe iyo mudanayaasha reer Sool 14 mudane oo kamid ah mudanayaasha beesha Sool ugu jira golayaasha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada ayaa soo saaray bayaan saxaafadda loo qaybiyay oo ku wajahan mowqifkooda la xiriira muranka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ee gobolka Sool mudanayaashani waxa ay ku sheegeen bayaankoodan in ay xusuusinayaan garaadadooda reer Sool in ay goobjoog ay ka ahaayeen go'aankii gooni isutaagga Somaliland ee sanadkii 1991 Burco beeshanina ay bulsho ahaan deegaan ahaan taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba ay ka culus tahay mid ayaheeda si fudud maalinba cid tan lihi ay meel kale ay ugula dullaanto waa sida yidhaahdeen
isla mar ahaantaasina waxa aanu caddaynaynaa ayaa ay yidhaahdeen inaan aragtida garaadadu waxba ka bedeli karin rabitaanka inta badan ee bulshada reer sool oo ku salaysan gooni isutaagga somalilan. bayaankan mudanayaasha reer sool waxa ay kale oo iyana ay ku xusuusiyeen bulshada iyo maamulka puntland in bulshada sool iyo guud ahaanba somalilan aanay ka mudnayn ina ay sheegtaan dalkooda, waxaanaanu ka rajaynaynaa ayay yidhaahdeen in ay ka waantoobaan isku dayga ah ina ay dhibaato nagu dhex abuuraan. waxaanaanu go'aansanay ayay yidhaahdeen in aanu gobolka si dhaqsa ah aan uga howlgalno. mudanayaashan 14 waxay kaloo dhaliil ay u soo jeediyeen gudoomiyaha golaha wakiilada masar axmed maxamed aadan qaybe oo ay sheegeen in uu kala fogeeyay beesha iyo somalilan, isla mar ahaantaasina ay kalsoonidoodii ay kala noqdeen gudoomiyaha. waa siday hadalka u qoreen. laakiin masar qaybe oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa ii sheegay in nimankan intooda badin ay yihiin rag aan somalilan waxba ugu fillayn, beesha sool dhexdeedana aan waxba ka qaban karin. tala adduunna waxa ay ka barteen ayuu yidhi hana loo diro gobolka, waxbana ma qabtaan markay beesha dhexdeeda ay tagaan ee way iska soo noqdaan. waxaana uu caddeeyey gudoomiyuhu inay jiraan qaar markay dadkooda u tagaan aan laba hadli karin amabase laba codleeya. masar axmed maxamed aadan qaybe waxa uu sheegay in beesha sool raggeedii miisaanka lahaa ay ka maqan yihiin somalilan, waxaana lagama maarmaan ah in laga howlgalo sidii raggaasi loo soo qancin lahaa si ay dad ku habboon oo beesha sool u matali karaa somalilan ay ugu soo biiraan hargeysana ay u yimaadaan. masar qaybe waxa uu ku nuxnuxsaday in uu isagu yahay gudoomiye baarlamaan ee aanu ahayn gudoomiye kooxeed, isaga oo sheegay in hadda la wado qorshe wafdi somalilan oo dhan ka kooban loogu dirayo gobolka sool. axmed saciid cige, BBC hargeysa. guurtida ee dalka la magac baxay jamhuuriyadda somalilan ugu qaabilsan arrimaha nabadgelyada ayaa warbixin ay shalay soo saareen waxa ay si weyn ugu dhaliileen xukuumadda dhammaystir la'aanta fulinta go'aamo ay golahaasi sheegeen inay ka gaadheen shaqaaqooyin haatan kahor ka dhacay deegaamada kale ah burco, hargeysa, ceerigaabo iyo gabiley labadii sannadood ee tegey. wariyaha iyaga magaalada hargeysa axmed saciid cige ayaa inoo haya faahfaahinta arrintaasi. guddiga nabadgelyada golaha guurtida oo ka kooban 15 xubnood ayna ka mid yihiin xaaji cabdi waraabe iyo suldaan cabdiraxmaan sheekh maxamed waxay warbixintan oo isla shalayto laga akhriyay fadhigii golahaasi ay ku sheegeen in howlgallo ballaaran oo ay ku dhexdhexaadiyeen beelahaasi xurgufuhu ay dhex mareen oo ay ugu waaweynaayeen dil iyo dhaawac dhowr iyo 20 qof ah oo ka baxay burco August 19 iyo dilal kale oo ka dhacay burco iyo dubur oo ka tirsan degmada Sheekh Maaris 1998 dhammaantoodba go'aamadii xukuumadooda laga gaaray aanay ka fulin wax dhaafsiisan aaskii dadka la dilay iyo kifooyinkii magta. warbixintu waxa ay sheegtay in beelaha lagu heshiisiiyey hanaan maamul laakiin aanay dhicin in lagu dhammaystiro oo waxaan xil iska saarin ayaa yidhaahdeen arrimahan maamulada ka jira gobolladaasi. guddigani waxa ay kaloo ay ku xuseen warbixintooda in xukuumaddu ay ku guuldaraysatay in ay kala xadayso dhul beereedka ku yaala meesha la yidhaahdo qadowga oo ka tirsan degmada gabiiley kadib markii ay guurtidu xallisay fal ka dhaxay dhulkaasi. xukuumaddana loo xilsaaray in ay u kala cabirto dhulkaasi beeluhu ay isku haystaan. warbixintan ay soo saareen guddiga arrimaha nabadgelyada ee aqalka odayaashu waxa ay tahay tii ugu horreysay ee ay ku dhaliilaan xukuumadda, waxaana ay ku talisay in wasaaradda arrimaha guduhu ay bixiso magdhow lagaga xukumay dhacdooyinkaasi qaar ka mid ahaa, isla mar ahaantaasina ay waajib cad ay ku siiso maamulada gobollada iyo degmooyinkaasi ay ku yaalaan in ay u howlgalaan qabyatirka halkaasi dhacdooyinkaasi. waxay kaloo talada ay ku bixiyeen oo warbixintani ay sheegtay in xukuumaddu ay degdeg ay u dhaqangeliso shuruucda kala xadaynta dhulka daaqsinka ah iyo beeraha lagana hortago waxyaabaha xasilooni darro abuuri kara. goluhuna uu u diyaar garoobo howlgallo cusub oo ku aadan dhinaca nabadda oo gobollada bari ee somalilan uu ka fuliyo. axmed saciid cige, BBC hargeysa. maanta ugu weyn oo wararka ugu weyn ka mid ah sida ay sheegayaan warar naga soo gaaray magaalada hargeysa roobabkii guga oo ka curtay meelo badan oo ka tirsan dalka la magac baxay jamhuuriyadda somalilan iyo qaybta ismaamulka ee soomaalida ee waddanka Itoobiya. aan idinku wareejiyo axmed saciid cige oo warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa. khadka isgaarsiinta foonyaha oo maanta aan kula xidhiidhay magaalada Boorama ayaa wararku ii sheegeen in shalayto galab uu roob fiican uu ka da'ay magaalada iyo nawaaxigeeda iyada oo dhumucda roobku ay ka xigtay Boorama dhinaca koonfureed, taasi oo keentay sidaan warka ku helay in uu soo rogmado dooxa loo yaqaano qoorgaab oo bari ka xiga dhinaca magaaladaasi. isla jiidaasi galbeedka waxaa foonyaha allay badin la iigu sheegay in wajaale iyo
geed ballaadhay iyo nawaaxiga allay badayba uu shalayto galab uu ka da'ay waxoogaa roob ahay oo fiicani laakiin aanu biyogelinin balliyada ay dhulkaasi caanka ay ku yihiin master ismaaciil cige oo degan tuulada yabyabo oo ku taalla hawdka fogo ee togdheer ee dalka Ethiopia waxa uu isna ii sheegay markaan salaadii jimcaha kadib aan kula xiriiray isgaarsiinta foonyaha in hogol ay ka cadeen xoolihii dhaamankiina laga dhaansaday ay shalayto galab ay ka daday meesha la yiraahdo baliliriye oo u dhow iyo cubyabo laakiin roobab kale aan laga soo sheegin hawdka inkastoo cirku uu tusan yahay biyo dhaamiskiina uu socdo foonyaha oo iyadana aan kula xidhiiray maanta magaalooyinka sayla laascaanood burco gabiile yurowe iyo baran waxa ay wararku ii xaqiijiyeen inaan weli roobabku aanay helin aagagaasi laakiin hafadu ay fiican tahay daruuruhuna ay dul joogaan master cilmi muuse oo degan baran ayaa isagu ii sheegay in habeen hore uu roob helay tuulada la yidhaahdo damaleexagare oo ku taala aagaasi gaar ahaana bariga sanaaga roobkaasi oo baraagihii qaar buuxiyey qaar kalena u kala badhay lagana cabay magaalada balidhiiga ayaa iyana aan khadka isgaarsiinta foonyaha buulkii kula xidhiidhay waxaana uu ii sheegay master faarax xaydid oo halkaasi degani inaan weli roobku aanu ka curan jiidaasi laakiin ay hogollo shalayto ay ka da'een balambaal iyo dabaqabad oo ku yaala hawdka bari ee gobolka togdheer magaalada hargeysana dhowrkii cishe u dambeeyey daruuraha ayaa cirka qariyey xalayna waxay dadweynuhu ay daawanayeen oo isha la raacayeen hilaaca ka muuqanayay hal fadhigeed jihooyin kala duwan oo meelo fogfog ah axmed saciid cige BBC hargeysa wuxuu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda la magacbaxday somalilan maxamed xaaji ibraahim ciyaal ayaa maanta dib ugu laabay magaalada hargeysa iyagoo kasoo qaybsamay dhinaca sanca waftigaasi waxaa toddobaadyadeenu soo dhaafnay booqasho dhowriyo oo 10 cishaa ay maxamed xaaji ibraahim ciyaal maanta uu ku qabtay magaalada hargeysa markii uu kasoo degayay garoonkeeda ayaa warbixinta waxaa nooga soo diray axmed saciid ciga master cigaal oo warfidyeelada ugu waramayay xarunta madaxtooyada waxa uu sheegay in labada dal ee ay tageen Yemen iyo Masar oo sida hadalka uu u dhigay isafgarawaa uu ku dhex jiray iyaga iyo Somaliland xijaabka ina dhex yaaleynaba aan u fiiriyay iyagu inay sabab ahaayeen ayaa waxa aanu ku wada hadalnay ayaa uu yiri master cigaal hadallo dhaadheer oo saraaxad leh madaxweynuhu wuxuu cadeeyay in madaxda Masar ay yeesheen shan fadhi taasi oo ku tilmaamay in ay isu soo dhaweeyeen aragtidoodii oo markii hore aad iyo aad u kala fogay sida uu sheegay waxa uu yiri laakiin maanu dhammayn oo islaamku keenin labadii aragtiyood waxaanaanu markii dambe aanu ku heshiinay iyadoo ay masaaridu ay tiri buu yiri maalin qura annagoo xagga u jeednay tiyada loo jeedin kari maysaane ee hadalkii ha inoo furmo oo bishan Afrikeedana wafdi aan idin soo dirno maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu taasi ku daray in ay Masar isla soo qaadeen iskaashiga labada dhinac maadaama ayaa yiri xijaabkii iyo safargarawaagii aanu bedelnay waxa aanu ku heshiinay ayaa uu yiri annaga oo nidhi mar haddii idinna maanta aanu idin fahmayno meesha aad u jeedaan annana maanta wixii aanu isleenahay Soomaali ayay wax ugu hagaagayaan sidii aanu u arkaynay aad fahmaysaan aanu uga gudubna ayaa uu yiri arrimaha Soomaaliga ama labada dhinac master cigaal waxa uu sheegay in ay ku heshiiyeen Masar in ay dugsiyadii sare macallimiin ay u soo diraan jawaabayna ay ku sameeyaan waa kuwa manhajka carabiga iyo diiniga waxaana uu cadeeyay in ay soo dirayaan masaaridu markab raashin iyo alaab kale ah master cigaal oo ka cudur daartay in uu wax faahfaahin uu bixiyo waxa uu sheegay in uu hadallo faahfaahsan u jeedin doono golayaasha dalka waxaana uu kaloo cadeeyay in ay Yemen ay ku heshiiyeen in ganacsigii u dhaxeeyay uu sidiisii u socdo oo laba xafiis oo ganacsi ay labada dal ay iswadaagsadaan iyada oo nin ka socda hay'adda dhaqaalaha ee dalka Yemen arrinta awgeed maanta uu u yimi Hargeysa isagoo la socday master maxamed xaaji ibraahim cigaal master cigaal waxa uu diiday in uu la kulmay oo magaalada Qaahira uu kula kulmay wuxuu ka tirsan kooxaha Soomaalida iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed midnaba axmed saciid cigaal BBC Hargeysa dhinaca magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda la baxday Somaliland maxamed ibraahim cigaal ayaa toddobaadkan ka hadlayay safarkiisii isaga iyo wafdigiisu ay dhawaan ku soo mareen wadamada Masar iyo Yemen shalay ayuu fagaaraha khayriyada ee magaalada Hargeysa kula hadlay dadweynaha isla markaa toddobaadkan horaantiisiina waxa uu hadal isla arrintaasi ku saabsan u jeediyay labada gole ee dalka la magac baxay jamhuuriyadda Somaliland wariyaha iyaga magaalada Hargeysa axmed saciid cige ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweynuhu waxa uu sheegay in wixii ay u tageen masar iyo yeman aanay ahayn in somalilan jiritaankeeda lagu gorgortamo ee waxay ahayd ayaa uu yidhi in nolosheeda qodaxda laga guro oo loo sameeyo saaxiib wanaagsan iyo dad garab gala masar cigaal oo si gaara uga warramayay waxa ay ku wada hadleen madaxda masar waxa uu yidhi waxaanu ku nidhi annagu shirkii aad qabateen iyo raggii aad isugu yeedheen dad aan ka raalli ahayn maanu ahayn laakiin shirkaasi lagu heshiisiinayo kooxaha koonfureed annaga meel inoogama bannaana oo ma jirto annaga cidna la heshiisiinaya oo aanu buus isnidhi haddii ay tahay calimaadi iyo raggiisa caydiid iyo cabdilaahi yuusuf toona madaxweyne maxamed ibraahim cigaal waxa uu intaasi u raaciyey in ay ku yidhaahdeen dalalkii ay booqdeen gaar ahaan masar arrinka iyagu waxa uu bilaabanayaa oo uu ku xidhan yahay marka ay kooxahaasi koonfureed ay heshiiyaan oo aanu somalilan iyo soomaaliya u wada hadlaynaa oo haddii aad rabtaan in aad arrinka iyaga gashaan oo aad dhex joogtaan diyaar baanu u nahay haddii aanu annagu keligayo dhammaysan karnana aanu dhammaysan doono masar cigaal waxa uu kaloo khudbadiisaasi shalayta uu ku soo qaaday doorashada dhow ee madaxweynenimada ee ololaheedu hadda uu ka socdo jamhuuriyadda jabuuti isaga oo yidhi ma aha dhaqanka dawladnimo in laba dal ay isfarageliyaan laakiin dhaqasho ayaan u faragelinaya arrinka jabuuti waxaana aan leeyahay maanta inteenan aan dhoodhoobayno ee aan ictiraafka haysan iyo jabuuti ayaa soomaali u aaya ah markaasi waxa aan leeyahay war soomaali eeg ah oo ilaahay dhibaatada idinka moosay eega waan idinla leenahay nimcada dawladnimo dabka quraha ee noo baxaya ee aanu eeganaynaana idinka weeye sidaasi daraaddeedna ficil dhexdiinna ahi yaanu arrinkiina aanu baabi'in ee isku tashada ayaa uu kula teliyey masar cigaal dadweynaha reer jabuuti madaxweyne cigaal oo khudbadiisan tan la mid ah toddobaadkii hore uga jeediyey golayaasha dalka xarunta golaha wakiilada waxa uu khudbadiisa shalayta uu ku soo qaaday oo kale iskaashiyo dhinacyada ganacsiga waxbarashada iyo caafimaadka ah oo uu la soo gaadhay dalalka masar iyo yeman axmed saciid cige b b c hargeysa magaalada hargeysa axmed saciid iyada la magac baxday jamhuuriyadda somalilan iyo hay-adda UNHCR ee qaramada midooda u qaabilsan dhinaca qaxootiga ayaa soo saaray maanta heshiis ay ku kala saxdeen magaalada hargeysa oo ku saabsan in qaxooti tiradiisu ay dhan tahay 60,000 oo qof laga soo celinayo bariga waddanka Ethiopia lana keenayo dalkaasi la magac baxay jamhuuriyadda somalilan heshiiska dhinaca somalilan uu saxeexay madaxweyne ku-xigeenku masar daahir riyaale kaahin dhinaca hay-adda qaramada midoobeyna uu saxeexay Mr. Emmanuel wuzu oo xigeenka hay-addaasi ugu qaabilsan xarunteeda Janeefa bariga bartamaha iyo galbeedka Afrika waxa ay labada dhinac ay ku heshiiyeen in ka hor soorarinta qaxootigaasi oo bilaabanaysa bisha Abriil ee sanadkan in UNHCR ay mashaariic dib u dejin ah ay ka fuliso meelaha dadka lagu soo celinayo oo mashaariicdaasi ay ka mid yihiin biyaha caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta xoolaha iyo beeraha qaxootiga la soo celinayo oo ka qaxay Somaliland dagaaladii sanadihii 1988 1990 iyo 94 waxaa lagu soo celinayaa si ikhtiyaari ah goobihii hore ay uga qaxeen miyi iyo magaalaba iyaga oo ka kala imanaya xeryaha bariga Ethiopia ku yaala ee hadda Sheekha Daroor Kaama Bokor Darwanaaje iyo Tafarrabir oo midkiiba shantaasi xero ay ka imanayaan 10,000 oo ruux halka ay shacabda iyo ramaso iyagana ay midkiiba ka soo hooyanayaan 5,000 oo qaxooti ah agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Masar Cabdullaahi Cumar Xasan waxa uu sheegay in sida uu dhigayo heshiiskani ay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay iyo wasaaraddiisu ay heshiis duceed kale oo ku saabsan qaabka fulinta hawshaasi soo celinta qaxootigaasi iyo mashaariicdaba ay dhowaan labada dhinac ay kala saxeexan doonaan isla marhaantaasina ay wada jiraan labada dhinac ee heshiiska gaaray iyo hay'adda qaxootiga ee Ethiopia ka hor bilowga hawshaasi ay soo mari doonaan xeryaha qaxootiga si loo hubiyo xaaladooda iyo u diyaar garowgoodaba hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR waxay Somaliland ku soo celisay sanadkii 1998 qaxootidan 49,007 qof oo ka soo guuray xeryaha bariga Ethiopia laakiin waxay hawshaasi hakatay kadib markii xukuumadda Somaliland dhinaceeda ay ka joojisay iyadoo salugtay xilligaasi wuxuu qabadka UNHCR ee qaxootiga la soo celinayay laakiin hadda arrimahaasi laga heshiiyey Axmed Saciid Cige BBC Hargeysa tahay dalal badan oo dunida ah waxaa lagu yeeshay kulamo lagaga hadlayo sida loola dagaalamo cudurka qaaxada iyadoo ay maanta tahay maalintii la helay waxa dhaliya cudurka qaaxada magaalooyinka Soomaalida arrintaas laga xusayna waxa kamid ah magaalada Hargeysa oo Axmed Saciid Cige uu warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa
ayaa maanta si weyn looga xusay maalinta qaaxada adduunyada oo ku beegan 24 maaris iyada oo boqolaal ka tirsan dadweynaha ku nool magaaladu ay saaka isugu soo baxeen fagaaraha khayriyada munaasabadan ballaaran ee halkaasi lagu qabtayna waxaa hadal ka jeediyey gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Sheikh Ibrahim Sheikh Yusuf Sheikh Madar oo boqolaalkii qofood ee fagaaraha isugu yimi ku guwaabiyey halista cudurka qaaxada uu leeyahay bulshada sida saalan ee uu faafo iyo sida laga maarmaanka ay u tahay in talada dhakhaatiirta dadweynuhu ay u qaataan ibrahim waxay ku dheeraaday oo kale in ay khasaare tahay haddii aan daawada xiriir loo qaadan waxaana uu mahadnaq ballaaran halkaasi uga jeediyey hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo iyadu soo qaban qaadisay munaasabadatan isla marhaantaasina Hargeysa ay ka mid tahay magaalooyinka ay u dooratay in xafladan oo kale lagu qabto si dadka lagu baraarujiyo halista cudurkaasi waxaa kaloo halkaasi looga mahadnaqay hay'ad samafal Kuwaiti ah oo iyadana cusbitaalada TB-da caawisa wasiir xigeenka caafimaadka Mr. Maxamed Xuseen Shirdoon oo isna ka hadlay munaasabada maalinta qaaxada adduunka waxa uu cadeeyay in xafladani ay tahay tii nooceeda ah oo kale ugu horeysay Hargeysa lagu qabto isagoo ballan qaaday in maamulka Somaliland gacan buuxda uu siin doono hay'adaha ku hawlan la dagaalanka iyo dabargoynta cudurkan dilaaga ah ee qaaxada maalinta qaaxada adduunka oo laga soo qaatay maalintii ugu horeysay ee adduunyada laga ogaaday fayruska keena cudurkaasi oo ahayd 24 maaris 1882 oo hadda ay ka soo wareegtay 117 sannadood waxaa warbixin uu soo saaray maanta xafiiska hay'adda caafimaadka adduunka ee Hargeysa mashruuciisa dabargoynta qaaxada lagu cadeeyey inaanay adduunyada soo marin maalin ay ka badan yihiin dadka u dhinta cudurka qaaxadu iyada oo maalintii ay dhintaan 8,000 oo qof oo u badan Afrika warbixintaasi waxay sheegtay oo kale in 3 dalool dadka adduunyadu ay la kulmaan cudurka qaaxada ah qof walba oo u buka tiradanina uu sanadkiiba uu sarayn karo 10 ilaa 15 ruux oo caafimaad qabay iyadoo cudurkani uu yahay ka ugu badan ee dadka dila South Africa dadka maalintan lagu qabtay khayriyada kalsoko waxaa dariiqyada waaweyn ee magaalada dushooda la suray halkudhigyo ay ka mid yihiin aynu u midowno xakamaynta qaaxada oo ah halkudhiga ay sanadkan hay'adda caafimaadka adduunyadu ay soo saartay si cudurkaasi loogu dabargooyo waxaana dhakhaatiirta Soomaaliyeed ay sheegeen halkaasi ay ka cadeeyeen in cudurkan uu yahay halista caafimaad ee haysata geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida kaasi waxa ahaa Axmed Saciid Ciile oo ka soo waramayay magaalada Hargeysa wararka laga soo gaadhay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in ay dood weyn ka taagan tahay arrin la xiriirta rag heer qatar ah oo dad badani tuusan yihiin inay u yimaadeen dalkaasi ugaasi inkastoo ay mas'uuliyiinta maamulkaasi ka tirsanay ay tilmaameen in raggaasi ay u yimaadeen xagga dalxiiska haddana waxaa duhun badan laga qabaa ujeedooyinkooda maadaama ay ragga reer qatar ay wataan qalab ay ka mid yihiin diyaaradaha helicopteriska loo yaqaano ee qumaatiga u kaca Axmed Saciid Cige oo nooga soo warrama magaalada Hargeysa ayaa warbixin arrintaas ka soo diyaariyay warkan koox qadariyiin ah oo madax uu yahay Amiir Sacuud bin Mohammed bin Ali Atani oo ka soo jeeda qoyska xukuumadda dalkaasi oo baryahanba u joogay Burco iyo Berbera hawlo la rumaysan yahay in ay la xiriiraan dhinaca Uganda ayaa socdaalkoodan dambe waxa uu dhaliyay murano gaaray mudaharaadyo iyo cambaaraynba kooxdan wato amiirkaasi oo hadda ku sugan jiida u dhaxaysa Burco iyo Oodweyne waxay dad badan ay la tahay inay u socdaan hawlo ugaasi taasi oo ay madax dhaqameedyada beelaha Burco qaarkood ay ku cambaareeyeen war saxaafadeed ay ka soo saareen kuna sheegeen in ay si weyn ay u diidan yihiin Uganda tirada yar ee laga dabargoonayo dalka sida hadalka uu qoreen iyagoo ku booriyay maamulka Somaliland in uu ka noqdo fasaxa ugaarsigaasi kuna xuseen war saxaafadoodkaasi in dawladaha carbeed waxtar laga eegayay ee aan waxyeelo looga fadhiyin wasiirka arrimaha gudaha Masar Umar Maxamed Nimcaale oo shalay ka soo laabtay Oodweyne iyo Burco isaga iyo wasiiro kale ay halkaasi u tageen si ay u soo xasiliyaan xiisada ka dhalatay ujeedada socdaalka kooxda reer Qatar oo xiisadu gaadhay 4 cisho ka hor in magaalada Burco laga abaabulo mudaharaad lagaga soo horjeeday arrinta lagu tilmaamay khayraadka dalka ee la bilileeqaysanayo ayaa Masar Nimcaale waxa uu wariyaasha u sheegay in uu guud ahaanba ku soo guuleystay dabinta xiisada ka dhalatay arrintan sidoo kale ahaa uu dadka reer Soomaaliya uu ku soo bixiyay inaanay kooxdani ahayn ugaadsato ay yihiin dalxiisayaal sawirro ka qaadanaya noocyada ugaadha ah ee laga helo Somaliland arrintan murankeedu waxa uu gaaray oo kale golaha wakiilada oo qoraal kaga dalbay xukuumadda in ay ujeedada nimankan qadariyiinta ah looga warbixiyo wasiirada madaxtooyada iyo deegaanka Masar Jaamac Saalax iyo Masar Maxamed Muuse Cawaale oo kadib hortagay aqalka wakiilada ayaa cadeeyay in ujeedada socdaalka kooxdani in ay markhaati fur ay u tahay in dalkani maamul ka jiro nabadgelyana uu yahay iyo in indhaha caalamka loo furo oo cid waliba ay timaado heshiiska lala saxeexdayna uu yahay sawir ugaadheed sida ay yidhaahdeen
war-saxaafadeeda isla ujeedadan ay ka soo saartay madaxtooyada toddobaadkan waxa ay ku sheegtay in qadariyiintu ay dalxiis ahaan ay dalka ugu yimaadeen markii labaad ujeedadooduna aanay ahayn mid ganacsi wax badanna ay ka tareen waa sida hadalka loo qoray ee masawirkii beenta ahaa ee nabadgelyada iyo wixii shacbigani uu qabsaday laga fidinayay kooxdan qadariyiinta ah oo wata raxan gawaadhida dheeraysa ah iyo laba diyaaradood oo helikobtarka ah iyo guryaha la jiido soona maray hawska gobolkaasi togdheer waxaa iyaguna ilaa iyo haatan dhaliilaya socdaalkooda jaraa'idka madaxa bannaan ee ka soo baxa hargeysa sida jamhuuriya himilo iyo the republican oo dulucdooda ku sheegay inaan qoraxda shacabka la saari karin axmed saciid cige BBC hargeysa عصبان lagu aftumay jiidan xasaanood iyo buuxood maalmo ka hor ninkaasi oo magaciisa lagu tilmaamay Cabdi Ahmed waxa la sheegay in uu watay badeecooyin uu siday harta sheekh oo ka soo degay dhinaca Boosaaso Axmed Saciid Ciyaar ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa mudane cabdinuur axmed muuse oo ka mid ah xubnaha golaha guurtida somalilan oo laga soo doortay deegaankaasi buuhoodle ayaa shalay tatar uu u soo diray golaha guurtida oo halkaasi uu ka soo diray uu ku sheegay in afduubka ninkan ganacsatada ah iyo baabuurta la xayirayba ay sabab ay u tahay aanu nin ka soo jeeda deegaankaasi buuhoodle oo la yidhaahdo mister cabdikariim hayre yuusuf oo ku xidhan magaalada hargeysa inkasta oo mudanaha qaarka soo diray uu ku sheegay tirada baabuurta lala xayiray ninka la qafaashay dhowr iyo 10 haddana khadka isgaarsiinta foonyaha oo aan kula xidhiidhay maanta dad xogogaal ah magaalada buuhoodle waxa ay ii sheegeen in ninka la qafaashay loola baxay dhinaca hawdka meesha la yidhaahdo xamar lagu xidh tirada baabuurtuna ay ahayd 7 baabuur oo iminka qaarkood la fasaxay qaar kalena rarkii bagaashka ahaa ee saarnaa lagu dejiyey magaalada buuhoodle gudaheeda wararkaasi waxay kaloo ay xaqiijiyeen in afduubkan ay ku kaceen wiilal oo dhalay iyo niman ay walaala yihiin masar cabdikariim hayre yuusuf oo ah ninka ku xidhan magaalada hargeysa iyaga oo sheegay sida aan wararka kaga helay buuhoodle in ay sii daynayaan ganacsade cabdi axmed marka loo sii daayo ninka ka xidhan xeergaalyaha guud ee somalilan master xasan xirsi cali oo aan wax ka weydiiyey sababta xadhigga master cabdikariim hayre yuusuf waxa uu ii sheegay in ninkaasi uu soo dacweeyey ganacsade maxamed jaamac juujuule oo sheegaya in qaab khiyaamo ah uu kaga lunsaday hanti badan oo lacag ah sidaasi daraaddeedna xeerlaalinta gobolka waqooyi galbeed ee hargeysa oo daraasad ku samaysay galbaxadeed baadhiseed oo booliisku uu soo gudbiyey waxa ay ku eedaysay ayaa uu yidhi xeerlaaliyuhu ninkaasi la yidhaahdo master cabdikariim hayre yuusuf dembigaas khiyaamo ee kiciqaabta guud arrintan afduubka oo golaha guurtidu shalay taba oo ay u cayimeen 3 xubnood oo la socda xaaladdu kolba halka ay marayso waxaa kaloo iyaguna ku hawlan furdaaminteeda cuqaal dabadoono mudanayaal iyo odayaal ka soo jeeda deegaankaasi uu qafaalku ka dhacay oo kala jooga buuhoodle iyo hargeysa axmed saciid cige BBC hargeysa أحمد سعيد علي أيا كذا قلي وربحنا لنا وقصوا دره munaasabada waxaa ka hadlay xasan xiise jaamac oo ah gudoomiyaha kooxda la baxday dibaabaynta eesan waxa uu sheegay in dadweynaha laga rabo garsoor siyaasi ah oo aanay ku kala raacin siyaasiyiinta qabyaalad iyo siday wax u bixiyaan isagoo uu sheegay in colaadda mucaaradada laga saaro xilka maamulkuna uu yahay in ay qaataan talada fiican ee dadweynaha iyo mucaaridkaba arrinta ugaadha oo beryahanba la hadalhayeyna waxa uu masar xasan xiise jaamac u soo jeediyey xukuumadda in la sameeyo guddi madaxa bannaan oo xaqiiqada keenta isla marhaantaasina suxufiyiin madaxa bannaan la geeyo goobta hawsha ay ka socoto si shakiga loo saaro dr maxamed xaashi cilmi oo ka mid a mucaaridka ayaa isaguna halkaasi ku dhaliilay hogaanka somalilan siyaasadiisa uu ku doonayo in uu ku heshiisiyo kooxaha koonfurta soomaaliya oo hargeysa lagu martiqaado waxauna carabka ku dhuftay in ay iman karaan oo keliya hargeysa maalinta ay ogoladaan madax banaanida somalilan waxauna uu naqdiyey oo kale maxamed xaashi qaabka loo maamulo dhaqaalaha dalka iyo shaqada golaha wakiilada oo uu sheegay in ay iska fasax tageen dalkoo duruuf adag ay ka jirto iyo iyadoo 22 qodob oo distoorxi ay ka leeyihiin khudbadahan oo laysugu tuurxulayay waxaa isaguna halkaasi ku dhaliyey madaxweyne cigaal inuu awoodii gacantiisa oo keliya ku urursaday oo wasiiradiisuna ay yihiin dambaalwalayaal keliya sheekh yuusuf sheekh cali madar oo ka mid ah gudoomiyaasha SNM ugu dambayntiina wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka xilka masar cabdilaahi maxamed ducaahe oo ku hadlayay magaca xukuumadda ay halkaasi mucaaridka ugu ballan qaaday in ay dhegaysanayaan taladooda lana furi doono dhowaan xisbiyadii oo ninkii wax isku haya halkaasi uu iman doono isagoo caddeeyey wasiirku in ragga soo dalay soonay sanaag ay doonayaan murangelin iyo in fidna ay dhacdo laakiin aan dagaal dhaxwayn siyaasadda xukuumadduna ay sidaasi tahay xilka masar ducaale oo si dadban u soo qaaday shakiga dadka qaarkii ay ka qabaan arrinta somalilan ay ku heshiisiinayso koonfurta waxa uu caddeeyey inaanay jirin
caalam ajende inoo samaynaya balse uu yidhi ajendaha aanu leenahay ayaa aanu ku hawlgelaynaa ee hana ay aamino gaadhi lama isaariyayna ma jiro ee rabbaa talada imaka hayaha axmed saciid xige d b c hargeysa. waxaa jira khilaaf soo dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka la magac baxay jamhuuriyadda somalilan kaasoo la xidhiidha dambaalmo loo diro ku saabsanaa doorashooyinka jabuuti. madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa ku tilmaamay qalad iyo sharci darro dhambaal uu hore ugu diray madaxweyne ku-xigeenkiisu masar daahir riyaalo kaahin madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti masar xasan guuleed abtidoon oo uu ku sheegay masar riyaale in isagoo ku hadlaya magaciisa magaca xukuumadda somalilanka shacbiga iyo golayaashaba uu ugu hambalyeynayo madaxweynaha cusub ee loo doortay mudane ismaaciil cumar geele dalka jabuuti iyo madaxweyne guuleedba muddadii 22 sannadood ahayd ee uu majaraha u hayay hogaanka dalka jabuuti. war-saxaafadeed xalay laga soo saaray madaxtooyada oo masar cigaal laftiisa uu ku saxiixan yahay ayaa isagoo tix raacaya dambaalkaasi uu madaxweyne ku-xigeenkiisu masar riyaale u diray madaxweyne guuleedka jabuuti oo xalata u daabacay wargeeska jamhuuriya ee ka soo baxay hargeysa isagoo soo xiganaya idaacadda dowladda jabuuti oo baahisay ayaa waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi inaan golayaasha magacooda madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen midnaba aanu ku hadli karin balse cod ay xubnaha golayaashu ay ku bixiyaan ayaa guddoomiyaasha golayaashu ay ku gudbin karaan. masar maxamed ibraahim cigaal waxa war-saxaafadeedkiisaasi uu ku caddeeyey in xukuumadda iyo shacbigaba madaxweynaha oo quri uu magacooda uu ku hadli karo sidaasi daraaddeedna dambaalkaasi uu madaxweyne ku-xigeenkiisu uu diray waa sida hadalka loo qoray cid aan isaga naftiisa ahayn oo uu ka socdaa aanay jirin. waxaa kale oo war-saxaafadeedkaasi uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka masar riyaale uu khalad iyo gef dastuuri ahaa uu ku diray dhambaalkaasi oo aanu ahayn wax xukuumadda golayaasha iyo dadka ka soo baxay isaga oo sheegay warku ina ay sidaa ogaadaan ciddii uu dhambaalku ku socday iyo dadka in loo hadlayo la sheegtay waa sida uu qorayo war-saxaafadeedkuye. sida laga warqabo masar maxamed ibraahim cigaal waxa 4 maalmood ka hor uu diray dhambaal hambalyo ah madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda jabuuti masar ismaaciil cumar geele sidoo kalena guddoomiyaha golaha guurtida ayaa isna hore ugu hambaliyey masar ismaaciil cumar geele dhambaal uu golahaasi uu u diray jabuuti. axmed saciid xige d b c hargeysa. ogle oo fudada baraf ama dhagaxyaalaha ayaa ka daayay habeen hore roobkaasi oo khasaare hantiyeed iyo dhimasho dadba geystay. axmed saciid xige ayaa warbixinta nooga soo diray. roobkan oo ka mid ahaa roobabka guga oo baryahanba ka da'ayay gobolada somalilan waxa uu kaga duwanaa kuwii hore isaga oo watay dabaylo hillaac badan onkod iyo danabyo waxaana markii uu qadar uu socday roobku ka soo daadanayay xilka fudada baraf ah oo markaasi ay ku soo dhacaan jiinkadaha guryaha saqafkooda ay ku abuureen dadka argagax iyo cabsi oo dadka qaarkoodna ay moodayeen in uu roobku wato dhagxaan taasi oo keentay in markiiba la rafaco sariibadaha iyo meelaha kale oo laga dukaansado. dadka laamiyada iyo laagaha kale ee biyo mareenka ah ayaa markiiba waxa ay isu rogeen dooxyo taasi oo sababtay in dadkii ay isu gudbi kari waayaan muddo saacado ahaa isla mar ahaantaasina ay ruux dumari ay ku dhimatay kadib markii ay isku dayday ay ka gudubto laagta biyo mareenka ah ee ku taalla meesha la yidhaahdo daami oo ku taalla cidhifka bari ee magaalada hargeysa. waxaa kaloo la ii sheegay xaafadaasi oo aan booqday in wiil yari uu dhintay isaguna kadib markii uu liday balliga daami oo ay biyaha roobkaasi ay buuxiyeen. booliiska xaafadaasi oo u gurmaday goobahaasi ayaa waxay ii sheegeen in ay diiwaan geliyeen ilaa iyo haatan 16 guri oo isugu jira guryo daara ah iyo sandaqado oo roobabku waxna ay dumiyeen waxna ay ka qaadeen saqafkii iyada oo aan arkay dad dib u urursanayay qalabkii dhismaha ee guryahooda dumay qaar kalena ay ii sheegeen in ay dabaysha roobabkaasi ay kala tagtay buulal iyo aqal soomaaliyo ay ku jireen. roobkaasi ka daay magaalada hargeysa waxa uu kale uu khasaare ugu geystay qalabka shirkadaha isgaarsiinta telefoonada iyo qalabka kale ee korontada sida tiirarka iyo xarkaha qaada telefoonada iyo nalka oo uu riday qaarkood taasina ay sababtay in hal qof uu dhinto kadib markii ay koronto qabsatay. waxay kaloo ay dhaawacyo fudud ay guryaha dumay ay ka soo gaadheen ilaa iyo 6 ruux sidaasi oo haddana ay tahay waxaa maalmaha dambe magaalada hargeysa laga dareemayay dada u badan dumar oo sabab dhaadheer ugu jira biyo dhaamis kaalmaha biyaha ee xaafadaha magaalada hargeysa iyada oo biyoolayaashuna ay gaadhsiiyeen boosadii biyo ahayd 4,000 shilin somalilan ah.
maamulka biyaha hargeysa ayaa waxa uu ku sababeeyaa biyo yaraanta iyada oo ay kala bateen dadka loogu talagalay biyaha hargeysa markii hore oo ahaa bay yidhaahdeen 150,000 oo qof iyada oo dadka haatan ku nool magaalada hargeysana ay gaadhayaan ilaa iyo 300,000 oo ruux iyo iyada oo weliba labadii dhuumood oo biyaha ka keenayay ceelasha geed deeble ay haatan duun kalihii ay ka shaqayso. Axmed Saciid Cige, BBC hargeysa. soo saaray xeeleleeyaha dalka la magacbaxay jamhuuriyadda Somaliland Masar Xasan Xirsi Cali oo ku sheegay go'aamo xiriirka xuquuqda carruurta oo ka furmay magaalada Hargeysa. waxaa noo soo diray wariyahayaga Axmed Saciid Cige oo ka soo magaalada Hargeysa. hase yeeshee waxaa marka hore uu ku bilaabaya warka uu soo saaray xiriirlaaliyaha guud. xeeleleeyaha guud Masar Xasan Xirsi Cali waxa uu warkiisa si cad ku sheegay in markii uu si gaar ah u dareemay xafiiskiisu in dad ay si sabab la'aaneed nafta ay uga qaadaan dad aan galabsan isla mar ahaantaasina uu arkay in habkii hore ee ay u socon jireen qaadista dacwadaha dilku ay waqti dheer ay qaadanaysay oo u muuqanaysay ku dhiirashada dilka uu isaga oo la tashaday gudoomiyaha maxkamadda sare ay go'aamiyeen buu yidhi in laga guuro habkii hore ee dacwad qaadista jiitanka loona guuro hab uu ku tilmaamay xeer ilaaliyuhu hab toobiye oo leh dhammaystir dhaqso badan. warkaasi cabo ee saxaafadda loo qaybiyey waxa uu qeexayaa in subaxnimada maalinta xigta taariikhda dilku uu dhaco la bilaabo dhagaysiga dacwadaha dilka lana wado maalintaasi oo dhan ilaa soo saaridda go'aanka maxkamadda oo haddii dembiga dilku uu caddaado maxkamadduna ay xukunto loogu fuliyo sida ugu dhaqsaha badan. kadib uu yidhi marka uu dhinaca qisaasta lahi ay qoraal ay ku soo weydiistaan in dil sugaha loo qisaaso. waxau kaloo warkaasi cabo uu ku sheegay xeelaalyaha guud in habkan cusub ee dadejinta dacwadaha dilku wax badan uu ka tarayo taabagelinta sharciga cadaaladda soo afsaridda khilaafaadka laba reerad iyo jeer ka dhexdhaca iyaba uu yidhi aaminaada ku aarsiga sharciga. waxa uu saluugay xeer ilaaliyuhu dad uu ku tilmaamay kuwa maamulku uu u soo qabto qofkii wax ka dilay lana hor keeno maxkamad ka garsoorta dilkaasi oo iyagu ku buuqa maxkamadaha oo abuuro khalkhal isagoo dadweynaha kula taliyey in ay ka fogaadaan ku-xadgudubka sharciga oo aanay soo noqnoqon buu yidhi ereyada mar ha la wada dilo kii la dilay iyo kii wax dilayba oo baryahan dambe Hargeysa caadays ka noqotay buuq badanna ka abuuray. dhinaca kale shirweyne lagaga hadlayo taageerista xuquuqda carruurta oo ay soo diyaariyeen hay'adda carruurta ee qaramada midoobay UNICEF iyo ururo kale oo samafal socon doona muddo 3 cisho ayaa shalayto ka bilaabmay xarunta golaha wakiilada ee magaalada Hargeysa. shirkaasi oo maanta galay maalintiisii labaad waxaa doodihiisa ka qayb qaadanaya aqoon-yahano madax dhaqameedyo culimaaudiin haween xildhibaano hay'adaha qaramada midoobay kuwa samafalka caalamiga iyo kuwa wadaniga iyo madax ka tirsan maamulka Somaliland. ujeedooyinka shirkaasi waxaa lagu sheegay taageeridda xuquuqda caalamiga ee carruurta iyo dhisme jawi wada shaqayneed oo lagu xaqiijinayo xurmaynta qawaaniinta salka u xuquuqda carruurta. waxaana laga jeediyey ilaa iyo haatan shirkaasi qoraallo ka hadlayay dhaqanka Soomaaliyeed iyo xuquuqda carruurta iyo sida diinta Islaamku ay u hadashay ilaalinta xuquuqda carruurta iyo heshiiska caalamiga ee daryeelka xuquuqda carruurta oo madaxda halkaasi ka hadashay qaarkood ay sheegeen in labada dal ee kaliya ee aan saxiixin heshiiskaasi adduunka ay yihiin Mareykanka iyo Soomaaliya oo aanay iyada hadda ka jirin dowladda ictiraafsan yahay. Axmed Saciid Cige, BBC Hargeysa. weli waxaa inoo socda warbixinihii wariyaha laanta afka Soomaaliga idaacadda BBC da Axmed Saciid Cige oo aniga uga soo waramayay Somaliland uu ku bilaabay idaacaddaasi sanadihii ugu horeeyay ee uu shaqada bilaabay 1999 ilaa iyo 2000. Axmed Saciid Cige oo labadii maalmood ee la soo dhaafay isaguna socdaal shaqo ku kala bixinayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Boorame ayaa intii dhulkaasi uu marayay waxa uu wadada ku arkay sida beeraleyda dhulkaasi ay isaga kaashanayeen goosigii mirihii xilligan u soo go'ay. waxaana Axmed Saciid Cige warbixinta soo socota uu nooga soo diray magaalada Gabiley. ayaa mid waliba waxa uu labada gacmood uu ka buuxsaday tib weyn. waxa ay ku garaacayaan haruur badan oo si rutuba isu haysta oo tuuran meel bannaan oo aan ka fogayn jidka laamiga ee u dhaxeeya Boorama iyo Gabiley oo saaka aan soo maray iyagoo ku dhawaaqayay hees hawleedyo u gaar ah xilligan oo kale marka beeraha la goynayo. Ibrahim Khaliil Ceelaabe oo ka
mid ah dhallinyaradaasi beeralayda iila sheegay in uu isagu leeyahay beerta laga soo gooyay haruurkaasi la diyaarinayay ayaa wuxuu ii sheegay in jiidaasi oo keliya ay ku yaalaan ilaa iyo 600 oo beerood xilliga la goynayana sabuulka dayrta uu yahay beeralayduna intii jaarayba ay iska caawiyaan oo marba beer la wada gooyo. ibraahim khaliif waxa uu ii sheegay in isaga kan ay u goday haruurkan ilaa iyo 40 jawaan wuxuuna xusay in ay kaalmo la xiriira dhinaca saacadaha qodista beeraha abuurka iyo hagaajinta barkadaha ay mararka qaarkood ay ka helaan hay'adaha samafalka caalamiga qaarkood iyo wasaaradda beeraha. shiidan gabiilay oo aan ku beeraha waxa aan ku arkayay intii aan marayay bal meel waliba tuuran kaasi oo beeralaydu ii sheegeen in xoolaha loogu talagalay xilligan jiilaalka. waxaan kaloo arkayay shaqo dayactir oo ka socota jidka laamiga ee u dhexeeya dila ilaa iyo kala baydh ee dhex mara beeraha. daahir xasan cilmi oo isagu shaqadaasi dayactirka madax u ahaa ayaa wuxuu ii sheegay in lacag dhan 120 milyan oo shilinka Soomaaliland ku bixaysa dayactirka wadadaasi ay bixisay hay'adda wadooyinka Soomaaliland shaqadeedana haatan ay gabagaba tahay. isduwaa wasaaradda beeraha ee degmada Gabiile Dr. Cabdi Risaaq Sheekh Maxamed Gaboobe ayaa isaguna wuxuu ii sheegay in 20 oo beerood roobaad oo ku yaala degmada Gabiile xilligii beerta beeray ilaa iyo 12 oo beerood kuwaasi oo uu sheegay isduwuhu in ay ka soo go'een ilaa iyo 45 oo kiintaal oo haruur iyo 15 oo kiintaal oo arbaqi ah. Dr. Cabdi Risaaq Sheekh Maxamed Gaboobe waxa uu kaloo ii sheegay in ay jiraan abuuryo kale oo ay ka mid yihiin digirta, sisinta iyo khudaar kale nooc iyada oo buu yiri degmada Gabiile ay ku yaalaan oo kale ilaa iyo 6500 oo bustaan biyood ah. hase yeeshee isduwuhu waxa uu walaac ka muujiyay beeralayda oo xilliyada buu yiri ay dalab u soo go'aan badana ay barnaamijka cuntada ee qaramada midoobay WFP uu suuqyada soo galiyo ku soo daayay buu yiri raashin mucaawino duqa degmada Gabiile Xasan Xaaji Yusuf Roble ayaa isagu waxa uu sheegay in ay haatan wadaan qorshe cusub oo lagu ballaarinayo guud ahaan degmadaasi iyadoo ay qofkii baratay ayaa uu 10 sanadood ugu dambeeyay oo ardada wax ku barta dugsiyada oo kaliya oo kuwa beeralayda ay ku jiraan ay gaarayaan ilaa iyo 5 kun oo arday.